Kenya oo ka adkaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo diyaarad militari oo Axmed Madoobe dib u geysay magaalada Kismaayo waxa ay soo taraya xiisadaha siyaasadeed iyo midda amni ee ka dhex taagan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland kadib markii warar soo baxaya ay sheegayeen in diyaarad militari oo laga leeyahay Kenya ay shalay si sharci darro ah Axmed Madoobe ku geysay magaalada Kismaayo Kenya iyo Jubbaland oo isbahaysi cusub bilaabay sida ilo waraajin lagu kalsoon yahay ay sheegayaan dowladda Kenya ayaa si toos ah u taageeraysa Axmed Madoobe taasoo si weyn uga soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya taageeridan waxay sii xoojisay xasaradaha ka taagan Jubbaland halkaasoo dowladda federaalka ay ku doonayso in ay yeelato saameyn ballaaran dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horay ugu digtay faragelinta Kenya ee arrimaha gudaha ee Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland waxaa la fahamsan yahay in Muqdisho ay ka xun tahay in diyaarad militari oo aan fasax ka haysan dowladda federaalka ay si toos ah Axmed Madoobe dib ugu geyso Kismaayo taasoo loo fasiran karo dhabarjab ku yimid awoodda dowladda ee gobolkaasi Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha Jubbaland ee muranka badan dhaliyay wuxuu ku tiirsan yahay taageeridda Kenya diyaaradan militari ee shalay galabtii Kismaayo keentay ayaa loo arkaa mid xoojinaysa awoodiisa si uu uga hortago isbeddel kasta oo uu ku samayn karo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo sii xumaan kara dowladda federaalka ayaa laga yaabaa inay si adag ugu falceliso arrintan xiisad hor leh oo ka dhalatay Jubbaland waxaa suurtagal ah in dowladda federaalka ay tallaabo siyaasadeed ama mid militari ay ka qaado Jubbaland Kenya oo sii adkeynaysa saameynta gobolka faragelinta waxay muujinaysaa in Kenya aysan diyaar u ahayn inay faraha kala baxdo arrimaha Jubbaland xiisadan cusub waxay muujinaysaa in loolanka u dhaxeeya Kenya Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya uu marayo meel xasaasi ah weli ma jiro wax war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya ama maamulka Jubbaland oo arrintan la xiriirta Kenya oo ka adkaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo diyaarad militari oo Axmed Madoobe dib u geysay magaalada Kismaayo waxa ay soo taraya xiisadaha siyaasadeed iyo midda amni ee ka dhex taagan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland kadib markii warar soo baxaya ay sheegayeen in diyaarad militari oo laga leeyahay Kenya ay shalay si sharci darro ah Axmed Madoobe ku geysay magaalada Kismaayo Kenya iyo Jubbaland oo isbahaysi cusub bilaabay sida ilo waraajin lagu kalsoon yahay ay sheegayaan dowladda Kenya ayaa si toos ah u taageeraysa Axmed Madoobe taasoo si weyn uga soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya taageeridan waxay sii xoojisay xasaradaha ka taagan Jubbaland halkaasoo dowladda federaalka ay ku doonayso in ay yeelato saameyn ballaaran dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horay ugu digtay faragelinta Kenya ee arrimaha gudaha ee Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland waxaa la fahamsan yahay in Muqdisho ay ka xun tahay in diyaarad militari oo aan fasax ka haysan dowladda federaalka ay si toos ah Axmed Madoobe dib ugu geyso Kismaayo taasoo loo fasiran karo dhabarjab ku yimid awoodda dowladda ee gobolkaasi Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha Jubbaland ee muranka badan dhaliyay wuxuu ku tiirsan yahay taageeridda Kenya diyaaradan militari ee shalay galabtii Kismaayo keentay ayaa loo arkaa mid xoojinaysa awoodiisa si uu uga hortago isbeddel kasta oo uu ku samayn karo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo sii xumaan kara dowladda federaalka ayaa laga yaabaa inay si adag ugu falceliso arrintan xiisad hor leh oo ka dhalatay Jubbaland waxaa suurtagal ah in dowladda federaalka ay tallaabo siyaasadeed ama mid militari ay ka qaado Jubbaland Kenya oo sii adkeynaysa saameynta gobolka faragelinta waxay muujinaysaa in Kenya aysan diyaar u ahayn inay faraha kala baxdo arrimaha Jubbaland xiisadan cusub waxay muujinaysaa in loolanka u dhaxeeya Kenya Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya uu marayo meel xasaasi ah weli ma jiro wax war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya ama maamulka Jubbaland oo arrintan la xiriirta Kenya oo ka adkaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo diyaarad militari oo Axmed Madoobe dib u geysay magaalada Kismaayo waxa ay soo taraya xiisadaha siyaasadeed iyo midda amni ee ka dhex taagan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland kadib markii warar soo baxaya ay sheegayeen
sheegayeen in diyaarad militari oo laga leeyahay Kenya ay shalay si sharci darro ah Axmed Madoobe ku geysay magaalada Kismaayo Kenya iyo Jubbaland oo isbahaysi cusub bilaabay sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay sheegayaan dowladda Kenya ayaa si toos ah u taageeraysa Axmed Madoobe taasoo si weyn uga soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya taageeridan waxay sii xoojisay xasaradaha ka taagan Jubbaland halkaasoo dowladda federaalka ay ku doonayso in ay yeelato saameyn ballaaran dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horay u digtay faragelinta Kenya ee arrimaha gudaha ee Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland waxaa la fahamsan yahay in Muqdisho ay ka xun tahay in diyaarad militari oo aan fasax ka haysan dowladda federaalka ay si toos ah Axmed Madoobe dib ugu geyso Kismaayo taasoo loo fasiran karo dhabarjab ku yimid awoodda dowladda ee gobolkaasi Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha Jubbaland ee muranka badan dhaliyay wuxuu ku tiirsan yahay taageerada Kenya diyaaradan militari ee shalay galabtii Kismaayo keentay ayaa loo arkaa mid xoojinaysa awooddiisa si uu uga hortago isbeddel kasta oo uu ku samayn karo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo sii xumaan kara dowladda federaalka ayaa laga yaabaa inay si adag ugu falceliso arrintan xiisad hor leh oo ka dhalatay Jubbaland waxaa suurtagal ah in dowladda federaalka ay tallaabo siyaasadeed ama mid militari ay ka qaado Jubbaland Kenya oo sii adkeynaysa saameynta gobolka faragelinta waxay muujinaysaa in Kenya aysan diyaar u ahayn in ay faraha kala baxdo arrimaha Jubbaland xiisadan cusub waxay muujinaysaa in loolanka u dhaxeeya Kenya Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya uu marayo meel xasaasi ah weli ma jiro wax war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya ama maamulka Jubbaland oo arrintan la xiriirta Kenya oo ka adkaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo diyaarad militari oo Axmed Madoobe dib u geysay magaalada Kismaayo waxa ay soo taraya xiisadaha siyaasadeed iyo midda amni ee ka dhex taagan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland kadib markii warar soo baxaya ay sheegayeen in diyaarad militari oo laga leeyahay Kenya ay shalay si sharci darro ah Axmed Madoobe ku geysay magaalada Kismaayo Kenya iyo Jubbaland oo isbahaysi cusub bilaabay sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay sheegayaan dowladda Kenya ayaa si toos ah u taageeraysa Axmed Madoobe kaasoo si weyn uga soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya taageeridan waxay sii xoojisay xasaradaha ka taagan Jubbaland halkaasoo dowladda federaalka ay ku doonayso in ay yeelato saameyn ballaaran dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horay ugu digtay faragelinta Kenya ee arrimaha gudaha ee Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland waxaa la fahamsan yahay in Muqdisho ay ka xun tahay in diyaarad militari oo aan fasax ka haysan dowladda federaalka ay si toos ah Axmed Madoobe dib ugu geyso Kismaayo taasoo loo fasiran karo dhabarjab ku yimid awoodda dowladda ee gobolkaasi Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha Jubbaland ee muranka badan dhaliyay wuxuu ku tiirsan yahay taageerada Kenya diyaaradan militari ee shalay galabtii Kismaayo keentay ayaa loo arkaa mid xoojinaysa awooddiisa si uu uga hortago isbeddel kasta oo uu ku samayn karo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo sii xumaan kara dowladda federaalka ayaa laga yaabaa inay si adag ugu falceliso arrintan xiisad hor leh oo ka dhalatay Jubbaland waxaa suurtagal ah in dowladda federaalka ay tallaabo siyaasadeed ama mid militari ay ka qaado Jubbaland Kenya oo sii adkeynaysa saameynta gobolka faragelinta waxay muujinaysaa in Kenya aysan diyaar u ahayn in ay faraha kala baxdo arrimaha Jubbaland xiisadan cusub waxay muujinaysaa in loolanka u dhaxeeya Kenya Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya uu marayo meel xasaasi ah weli ma jiro wax war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya ama maamulka Jubbaland oo arrintan la xiriirta Kenya oo ka adkaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo diyaarad militari oo Axmed Madoobe dib u geysay magaalada Kismaayo waxa ay soo taraya xiisadaha siyaasadeed iyo midda amni ee ka dhex taagan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland kadib markii warar soo baxaya ay sheegayeen in diyaarad militari oo laga leeyahay Kenya ay shalay si sharci darro ah Axmed Madoobe ku geysay magaalada Kismaayo Kenya iyo Jubbaland oo isbahaysi cusub bilaabay sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay sheegayaan dowladda Kenya ayaa